shir muddooyinkii u dambeeyay beesha Yoonis Ismaaciil ee degta gobolada Sanaag Sool iyo Togdheer uga socday deegaanka Bohol ee gobolka Sool ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay halkaasi waxaana shirkan ay ka soo qayb galeen madax dhaqameed salaadiin waxgarad labeenta iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta beeshu ahaa mid ay kaga tashanayeen ayahooda mustaqbal ee beeshaasi qodobadii iyo go'aamadii shirkaasi ka soo baxayna waxa ugu horeynba halkaasi ka akhriyay Maxamed Jaamac Xasan Daadey waxaanu yiri haddii ay beeshu wada tashatay isuguna timi alla bari waxay go'aan ku gaadhay kow waxay beeshu ugu baaqaysaa beelaha ay wada degan yihiin ee ay jaaraanka yihiin meel kasta joogaan ma nabad ba ugu baaqaysaa gaar ahaan beesha Maxamuud Garaad oo iyadana aanu dalab iyo codad ka hayno aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa inay beeshu isla eegtay markay dhinac walba iska taagtay waxay beeshu isku raacday oo si mug iyo miisaan leh iyo midnimo leh isugu raacday nabadeyntii ka socod degmada Ceelaf Weyn ee hore u dhacday inay sidii ay nabadeyntaasi ku dhacday ay beeshu u wada qaadato waa biyo kama dhibcaan arintaasi waxaan arintaasina waa go'aan ay beeshu isku raacday cid allaale cidii ay hadda cusub tahay wixii dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaanu annagu arinta u daba fadhinaa sidii dawladda hore uga dhaqwaajisay go'aamadana ay ku gaadhay ummadana ay ku soo gaadhisay ugu sheegtay annagu arinta dawladda ayaan u daba fadhinaa dawladdaanu go'aankeedii ka sugaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay aanu ka codsanaynaa madaxweyne waxaan ilaahay jeclaynahay nagu kalifina waxaan aadmigu Soomaaliland u dhashay jeclaynayeen anagu kalifin waxaanan anagu jeclayna hanagu kalifina waxaas waa maxay ilaa maanta iyo maalintii arintaasi dhacday dagaal sokay ayaan ka dagaalamay inuu ka dhaco jiidaha aanu deegaanka ka nahay laakiin waxaad moodaa dagaalkaasi inuu isa soo tarayo oo aanu mar radamayn waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne arinta inaad si mugle u soo farageliso qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo waxgaradka beesha Yoonis Ismaaciil ee halkaasi shirka ku soo gabagabaysay ayaa iyaguna dhankooda cadeeyay inay isku raacsan yihiin dhammaan qodobada halkaasi lagu gaadhay beeshu shirkeedu wuxuu ahaa shir daneed iyo arrimaha reerka oo lagaga tashanayay sidaa awgeed waxyaabaha dhaca amar Ilaah bay ku dhacaan hase ahaatee waxa wacan inay afgo'aan kuwii ugu dambeeyay marka la soo qaado dawladdu go'aan bay ka soo saartay hadday dib u dhaceen sidiiba ay dawladdu ugu dhawaaqday marti loogaga yahay shaqaqooyinkii dhacay ama dagaaladii dhacay shaqaqa lama yaadaysan yihiin baa loo yaadaa dad baa ku dhintay ku nafwaayay ku dhaawacmay ee foosha xun ee jiidaha nin badan ka soconayay iyo afgo eela ma waxaan ku jirin baa la soo gelinayaa mise wax ku jira baa laga saarayaa baa gooroorin jir tii ka horeysay Ceelaf Weyn nabad baa beelis la qaateen meel baa la dhigay waanu ku ayidsanay halka la dhigay in lagu sii adkeeyo oo lagu ilaaliyo ayaanu iyadana ku ayidsanay wixii ka soo daba tuura iyo ducayn ah waxaanu leenahay hal laga daayo cidda ku haysa iyada streami doontay waxaan leenahay ka diiso beesha Yoonis Ismaaciil ee shalayto isugu timi alla bariga iyo ducada iyo wada tashiga danaha guud ee beeshu ay leedahay lagaga wada hadlayay in beeshu go'aamadii ay shalay ka soo saartay wada tashigeedii waa kuwa uqaasha iyo waayeelka kale ee iga horeeyay ay soo gudbiyeen aniguna sidaas baan ku ayidsanahay kagana mid ahay daaco chief caaqiladii reer Cabdiraxmaan Axmed Ilsar wararka Star TV